بسم الله الرحمن الرحيم هارت kusoo dhawaada qaybteeni afraad ee TK Inter qaybtan waxaan ku qaadan doonaa TK Inter widgetskiisa mid kamid ah waana check button marka ugu horeyso marka rabtid check button inaad sameysid waa inaad ka sameysto object waxaan sameyn doonaa laba check button bis shaqada oo sida uu qabtay iyo sidoo yahay arkayna marka object marka ka sameysanayso waxa uu yeeraysaa check button kan capital-ka maahan waa midkan xarafka ugu horeeyo oo capital-ka yahay marka object-gan waxyaabo badan oo loo dhiibi karo ayaa jira option badan ayaa jira option-ka ugu horeeyo waxa waaye aan soo aragnay button-ka soo qaadanay sida button-ka kale waa option-ka ugu horeeyo horta meesha la dhigayo window-gi aan ku dhex isticmaal lahaa maadaama window soo sameeyay window-ga inaan ku dhex isticmaalo aan rabo check button-kan option-ka ugu horeeyo aan isticmaalayo waxa waaye winkaas next waxaa jira option badan waxaan ku xijinaynaa text-ga lagu soo qori lahaa text-kiisa waxaan ka dhigaynaa waxaan leenahay music marka dhahno hadaan rabo check button-kan in aan shaqo ku qabto ama aan u sameeyo inaan dhigto wax u dhiibo oo kaleeto ama wax ka bedelo waxaan u baahanahay inaan variable-kiisa aan si declare gareeyo marka optional variable uu leeyahay parameter-kaas uu qaadanaya marka waxaa sameynaysaa parameter-kaas marka u dhiibto waxaa leedahay variable marka dhahdid waxaa u dhiibaysaa variable waxaa jiro location la sameynayo ama variable adiga soo sameysanaysid kaas oo qiimo loogu soo dhiibayo qiimana waa ka qaadaysaa qiimana waa ugu dhiibi kartaa state-ka uu taagan yahay markaas haddii uu check button-ka uu checked uu yahay oo mid la doortay uu yahay iyo haddii kale waxaa ku fahmaysaa variable-kaas marka variable-kan sameysano waxaan u bixinaynaa check var 1 دام كان كواد ويه أرجع بس صار يعني variable كمان سمين أنت بكسو أبورنا حالنا هاي سيجسو كودية كدبنا أنت بس كده حاولي بقى انتفار object يعني كسمة سنة انتفار كلاس كله مركا انتفار مركا object كسمة استو انتفار كسوح يقبل نسا variable كمان حكون جرو data إن نقطة integer intivar ayaa jirto waxaa kaloo jirto str string var double var kuwa kale waa jiraan marka errorku ka baxay uu ii sameysan yahay waxaan ku xijinayaa marka statekiisa ama ma checked mase waa unchecked sidee lagu kala fahmaya waxaan sameynayaa laba parameter oo kaleeto la dhahayo on value iyo off value waxay sheegaysaa inuu check gareysan yahay check button-kan marka on value waxay kula mid tahay leedahay 1 uu shidan yahay on value 0 hadda ka dhigo hadhooti haddii aan dhaho check varkaas 1 uu kula mid yahay waa la check gareyn doonaa waa la dimin doonaa kadibna waa la jagareyn doonaa haddii uu 1 iyo 0 wuxuu yahay marka on value hadda 1 waxaa ugu dhiib waxay tahay 1 wuxuu sheegayaa wax daaran saas darteed ugu dhiib off value waxaa waaye qiimaha markuu uu shaygan dansan yahay off value waxaan leenahay waxay kula mid tahay 0 waxaa noogu xiga marka check button-kan wuxuu leeyahay height iyo width height-kiisa aan soo hormarinaynaa height-kiisa waxaan ka dhigaynaa 5 width-na waxaan ka dhigaynaa 15 okay intaas waa isku dhamaatay marka intaas sameyno haddii aan raganayno hadda waxba soo bixi doonaan waxaa naga dhiman meesha aan dhigaynay meesha laga dhigayo oo meesha qaadanaysa space-ka qaadanaysa in loo sheego marka saas waxay ku dhacaysaa حجرو grid in الاستعمال in back method الله الاستعمال in sidoo kale place method الله الاستعمال hadda waxa isticmaalayna grid marka grid system kan oo aan ku shaqeyn doono markaan TK Inter joogno waxaan u fiirinaynaa row iyo column sida grid-ka loo fiiriyaba marka grid-kan waxaan sameynaynaa waxaan leenahay c1.grid grid-ka waxa u dhiibaynaa marka koowaad row oo rowga marka shaygan maadaama object-gan uu yahay kii ugu horeeyay waxaan sameynaa control-kan
waxaan ka dhigaynaa controlkan waxaan ka dhigaynaa rowga koowaad. sidoo kale columnkiisana waa isla columnka koowaad maadaama objectii ugu horeeyay uu yahay. columnkiisana waxaan ka dhignay kan koowaad. okay aan garayna marka saa hadda u jeedid meeshan waxaan kusoo qornay rowgan ugu horeeyo waxaa qaadanayo music. saa u jeedid columnka marka columnka koowaad maadaama iyo columnka labaad hadda meeshan kusoo taxay rowga koowaadna aan ka dhigo inta lagu sii wadi doona dhankan. saa u jeedid okay waxaan sameynayaa marka waxaan copy ka sameysanayaa isla kan midka labaad aan ka dhigayaa maadaama markii hore aan dhahno laba xabaan sameynaynaa saas darteed laba xabaan sameynaynaa. okay kan waxaan ka dhigaynaa intro leenahay. okay kan waxaan ka dhigaynaa kan labaad. hadalkan waxaan ku bedelaynaa video meeshaan 2 ayaan ka dhigaynaa. inta kale same ka yihiin waxay kula badnaan doonaan meesha la dhigayo oo ayaa kan la jecelahay inaan dhigo iyo columnka koowaad. sax hadda arrin garayna marka hal qalad jiro intaan arrin garayn qaladkii jiro waxaa meesha in 2 laga dhigo marka riirana lena. okay saa u jeedid hadda waa kala fog yihiin saasoo tahay music iyo video ujeeda waan check garayn karaa waan check garayn karaa. sidoo kale kanna waa sidoo kale. okay height-ka waa yareyn karaa waxaan ka dhigi karaa 2 kan kanna waxaan ka dhigi karaa 2 soo baxa aragno. saa u jeedidba waa la yareeyay. waxaan rabaa marka laba button aan sameysanayo. labadaas button waxay sameynayaan markii aan select gareeyo inaan labadoodaba unselect aan dhaho oo deselect aan dhaho inaan labadoodaba deselect aan dhaho oo markii saan loo select gareeyo hal mar deselect la dhaho. labadaas button midna waa deselect midna waa select midna labadooda hal mar oo select gareena midna labadooda hal mar oo uncheck gareena check iyo uncheck. okay sida loo isticmaalayo fiirinayna marka hore inta haddaan rabo inaan isticmaalo ama ka shaqeysiiyo waxaan u baahnaa functionka marka inaan abuuro aan rabo waa inaan marka hore functionka abuurto deselect iyo deselect intaan gaarin horta buttonka u baahnaa meeshaan check button yaal. waxaan leenahay btn d ama select all. okay waxaan kula mid yahay button caadi aan sameysanaynaa kadibna waxaan u dhiibaynaa marka koowaad optionka ugu horeeya mar walba sameynayna waxaa inoogu xiga textiga aan dhahayno inuu kula mid yahay select all. select all markaad dhahdid kadib waxaa inoogu xiga functionkiisa. functionka markii loo dhiibayo marka waxaa la qori jiray parameter la lahayo command oo optionkaas waxaa lagu shubi jiray functionkaas marka bracket looma yeeli jirin. functionkaas anaga waxaan u bixinaynaa select underscore all. okay kaas waa kaas. midka xiga waxaan sameynaynaa sigii waxaan ka bedelaynaa d select bes select all. kan waxaan sameynaynaa ka hormarinaynaa d bes selectada marka capital ma karabno small aan ka dhigaynaa. waxaa inoo xigo functionskan inaan soo abuurno. functionskan waxaa ku abuureynaa korkaana iskaga soo abuureynaa. okay marka hore waxaan iska qornaynaa commentiga waxaan leenahay function that selects all checkboxes ama check buttons all
the check buttons. All the check buttons markaad dhahdid kadib intaan ka saarno functionkii abuurayna. marka functionka shaqada qabanaysa waxay tahay marka koowaad waxaan leenahay def select all. shaqada qabanaysa waxay tahay inay check gareynayso labadaba. selectis meeshaan waxaan ka dhigaynaa selectis or checks maahan waa checks. okay, shaqada qabanaysa waxay tahay marka waxay sameynaysaa objectigan ka sameysanay check buttonka koowaad aan leenahay dot markaan dhaho select ayada soo baxaysa. select hadaan raacino select methodkaas marka wuxuu qabanayaa markii loo waco buttonka u wacdo ayuu select gareynaya ama check u saaraya. sidoo kale waxaan sameynaynaa kan kalena waa select gareynayna. okay, labadaas waa la select gareeyay laakiin waxaa ii dhiman meeshaan waxaan ku qorayaa buttons sida ka dhex qasmin. intan waxaan ku qorayaa check buttons. okay, waxaa inoo dhiman inaan gridkan aan saarno ayakane. waxaan sameynayaa waxaan leeyahay btn dot grid. waxaa sameysaa column iyo row aan soo kobiyey kadibna waxaa dhahdaa inta saar. rowga marka waxaan sameynaynaa rowga koowaad aan saaraynaa kan rowga koowaad columnka labaad. kan kalena sidoo kale aan sameynaynaa rowga labaad ka dhigaynaa bis. intan waxaan ka dhigaynaa labo. okay, function deselect all manoo sameysno ayada laftirkeeda abuurayna tii aan sameyno bis ayaa copy gareynayna deselect aan ka dhigaynaa meesha select ah bis. okay, hadda intaan waan sameynay waxaan u laabanaynaa kor. inta waan ku qorayaa comment placing the widgets on the window. functionkii labaad aan dhiman. functionka labaad waxaan sameynaynaa control d ayaan leenahay ayadii camal aan sameynaynaa laakiin tii hore waxay ugu duwan tahay tan. waxaan leenahay deselect bis. deselect markaa dhahno objectyaashan waxay yeelanayaan ay laftirkooda mithal like deselect. kan kalena sidoo kaleeto waaye deselect ayaan leenahay. okay, intaas aan sameynay aan browin. wax iska fudud mar walba tijaabo u baahnaayeen laakiin waxaa dhacaya xoogaa in aysan isku qasnayn oo kala saaran yihiin ayaa kasbaaday in koodkii soo dhammaystiran aan qorno. okay, saa ujeeda hadda music ayaa meeshan ka muuqdo. markaa select garay marka meeshan selectigan ku qorantaa ka bedelaynaa. select all waxaan ka dhigaynaa deselect all ayaan ka dhigaynaa. next waxaa inoo ah markaa ka dhignay aan rangareyna mar kale. okay, select all markaan dhaho waa shaqeynaa. saa ujeeda labadooda wada saaray. select all markaan dhaho waa ka wada qaaday. marka functionka intaasay qabanaysaa. haddaa rabtid markaa select garaysa waa u yeeri kartaa. hadda markaa aan saan dhaho waxaan sameyn karaa inaan dhaho waxaan sameynayaa inta tagay markii la select gareeyo waxaa leedahay print waxaa leedahay check C1 ma ahan aan sameynayna waxaan leenahay button saddexaad sameynayna saan uga maarno
سأو هلنا waxa la jeegareeyay marka aan ka tagno okay buttonka saddexaad wuxuu nooga baahan yahay aan leenahay check btn check bas aan bixino btn check waxaan leenahay check button check button inta dhiileen btn check kusoo koobnaa fiican waxaan ku qoraynaa isna check okay check markaan ku qornay inta sameynaynaa function la dhahayo ayadana check inta markaa imaatid waxaan sameynaysaa rowga saddexaad bas aan leedahay intani okay functionkaan sameyno functionkan waxay u baahan tahay horta waxaan saaraynaa comment waxaan leenahay check activity iskaga qoraynaa kadib waxaan leenahay def check then shaqadu qabanaa maxay tahay in lasoo print gareeyo kan la doortay ama la select gareeyay iyo midka aan la select gareyn state-kooda ay xaaladda ku sugan yihiin labadooda ma labada select gareey haddii labada select gareey labadooda 1 soo qori doonaa haddii aan labada select gareyn 0 soo qori doonaa haddii mid kamid la select gareeyay 01 iyo 10 saas soo kala qori doonaa marka waxaan soo print gareynaa waxaan leenahay print check far1 .get marka waxay qabanaysaa ay soo qaadanaysaa value ay soo qaadanaysaa waxa waaye kan koowaad kan labaadna valuegiisa soo qaadano aan ku sugan yahay markaas okay marka sida code-keena uu clean u noqdo waxaan sameynaynaa kala fogeynayna inta waxaa jaalaha qalab intan aan tagno okay maxaa kale kuwan aan ka shakino that's it waxaan sameynaynaa marka hore gareynaynaa aan tijaabino okay inta aan geyno si fiican u fiir meeshaas inta fiirso kan waa jeegaray select hadda dhaw shaqeynay select all hadda dhaw shaqeynay laakiin check hadda dhaw wuxuu sameyn doonaa si fiican fiiri waa shaqeysa ujeedada soo qori okay aan ka wada qaado mid aan ka qaado check aan dhaw 01 soo qori doonaa 01 ayuu soo qoray labadooda aan ka wada qaaday 00 soo qoray hal mid aan saaray 10 soo qoray marka koowaad hadda fiirisid labadooda markii hore waa wada saarnay taani oo marka 11 sababta u soo qoray oo labaad u soo qoray saas ay gareeya in uu select gareysan yahay in kala check buttonka marka check buttonka intii ugu muhiimsaneyd intaas ay ahayd qaybteeni afraad ee TK Inter oo aan ku qaadanay check buttoniska intaas ay nooga eg tahay